soo dhawaada gabadhan iyo hooyadeed dhibaata kala haysato. Maalin intay hurdo ka soo kacday iyadoo iskuulkeeda u socotay waxay ku dhehaysaa maxaa waay dharkan gaagaaban oo aad xiranta orod hadda soo bedel. Hooyadu waxay sii yaabaysaa markay aragtay inay gabadheedu tattoo lugta soo marsato. Iyadoo xanaaqsanay waxay weydiinaysaa ku awood inaad tattoo soo marsato. Iyaduna hooyadeed waxay ku dhehaysaa waa kula kaftamayo oo kaliya waxaan tattoo maahan. Intay soo tirtay waxay tusaysaa inay waxaan qali yihiin oo ay tirmayaan. Waxay u sheegaysaa marka in ay hadda baxdo oo ay dharkan gaagaaban iska soo bedesho. Iyaduna dood dheer kadib way ogolaanay inay iska bedesho. Habeenkii markii la gaaro waxaa lagu dhahay orod jikada soo hagaaji. Iyaduna waa tanay saaxiibadeeda xaflad ku ballansanay. Hooyadeeda intay u timaaday waxay weydiinay shaqadaada ma qabsatay. Waxay ugu jawaabay aniga haddii aan hooyo ahaa lahay gabadheeda wax walba u ogolaa lahay anigana shaqada qaba lahay. Marka hadda waxaa jira xaflad ay saaxiibaday leeyihiin ma ii ogolaanay inaan xafladaas aado. Waa bixi kartaa ay ku dhehaysaa laakiin waa haddii aad guriga ku soo laabanaysid markii 4 saac oo habeenimo la gaaro. Iyaduna hooyadeed waxay weydiinaysaa maxay igu diidaysaa dadka 7 saac magaalka wareegaane. Waxay ku dhehaysaa aniga dadka kale wax miiga gelin laakiin gabadheeda 16 jirka magaalka ma wareegayso. Kadib midaan iyadoo xanaaqsanay meeshii isaga tagay. Laakiin hooyadu qolkeedii intay uga daba timaaday waxay ku dhehaysaa 4 saac bara kaaga dhiga laakiin iyadu wali way diidan tahay. Habeenada kamid ah hooyadu intay soo baxday naagtan ay saaxiibada yihiin intay u timaaday waxaan wajiga marsanay sababta u marsanaysana ma aqaani. Markii ay guriga ku soo laabatay gabadheedii fiiri maagay laakiin sariirta way ka weynay iyadoo yaabanay guriga ka soo baxay marka si ay u soo raadiso. Ayadiina waa tanahay meeshaan ay saaxiibadeed la baashaale. Waxay arkay inay hooyadeed xafladda ay joogto waana la soo wadaa. Markii ay gaariga soo wada saarnaayeen waxay ku dhehaysaa adiga hooyo xunaa tahay way fiicnaaleed haddii aan hooyo fiican heli lahaay. Kadib hooyadu waxay wacaysaa naagtii ay saaxiibada ahaayeen oo wajiga waxa u soo marinaysay. Waxay ku dhahay gabadheedii waxay ugu dhahday hooyo xunaa tahay hooyo fiican u baahanahay. Saaxiibadeed qorshay keenaysaa waxay ku dhehaysaa aniga ii imaa waxa ka dhigaa nooc kale gabadhaadana hooyo kale u sameeynayna. Subaxdii gabadhii markay hurdada ka soo kacday waxay arkaysaa naag jikada dhexdeeda isaga dhex baashaalayso waxay weydiinay hooyadii aawad adigana yaa noo ahayd. Midaan iyadoo si qof cabtooy u hadlaysay waxay ku dhehaysaa magaciiga waa Baybar iska kaybar waxaana hooyadaada cusub. Ayaduna waxay isku dayay inay hooyadeeda wacdo laakiin waxa lagu dhahaa nambarka wacdo wuu dansan yahay. Midaan gabadha waxay ku dhehaysaa isdeji adiga hooyada way nabad qabtaa oo way fiican tahay. Anigay ii timaaday waxayna ii sheegtay inaad adigu hooyo fiican aad rabto. Marka waxay ugu dhahday orod adiga gabadheeda u tag mana aqaan inta sanay maqnaa doonto. Marka adiga hadda waxa sameeysaa dhar caliyaha wada tahay orod naga soo bedel. Hooyadeeda cusbeeday waxay weydiisanaysaa dhar gaagaaban ma xira karaa. Intay ku qosashay waxay ku dhehaysaa adiga kaftana meesha ku haysaa waxaad rabto waa xira kartaa aniga ma ku cishanay. Kadib labadoodu intay soo raacaan suuqa imaanayaan waxayna soo gadanayaan balaay gaagaaban oo dhan. Xitaa habeenada qaar ma seexanayaan oo iyagoo filin daawanaya waayigu ku barya. Gabadhii ay hooyadeed ku dhihi jirtay 4 saac imaawna xafladda waxay ku gaaray 8 saac. 7 saac oo maalinimana gurigeed dib ugu soo laabanay. Waxay bilaabaysaa marka inay cunto barbaarato laakiin wax dhan ma ku arkayso firijeerkana waxay ku arkay inuu qashin ku jiro. Kadib hooyadeeda cusbeeday waxay weydiinaysaa cunto maxaa u kari weysay. Ayaduna intay ku qosashay waxay taagan tahay cunto kaliya ma iimalaysaa. Waxaas intaad iga diisid taatuugana u jeedid wuu kala kacsan yahay ee waa idina marsataa. Hooyadeeda cusbeeday waxay u sheegaysaa inay xoriyad inta la egayso waligeed helin. Habeenkii markii la gaaro ninkan odaga ah uu imaanaya sababtana wax kala maahan taatuuga u marina. Taatuugi markii ay u soo diyaar garowday iyadoo gacanta loo marin rabay daqiiqadii ugu dambeysay go'aan qaadanay. Kuwaana waxay ku dhehaysaa taatu inaan marsado ma rabi go'aankayga waa ka laabtay meeshana way isaga tagay. Iyadoo si xarabta ayaa hooyadeeda cusub u imaanaysaa waxay ku dhehaysaa kalaab cusub magaalka laga furo isdiyaari waa aadinay. Iyaduna way ka diidaysaa kadib hooyadeeda wacanaysaa waxa lagu dhahaa wuu dansan yahay. Subaxdii markii ay soo kacday waxay arkaysaa in jikadii oo dhan oo ay wada qashin ay noqotay xitaa ay baranbara joogto. Waxay go'aansanaysaa in ay hagaajiso dadaal dheer kadibna gurigii dhan ay hagaajisay. Albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca markii ay furtana waxay arkaysaa inay tahay hooyadeed saaxiibadeed. Intay gudaha soo galisay waxay ku dhehaysaa aniga asbuuc ka hor hooyadii waa isdagaalnay. Kadib anoo xanaaqsanaa waxa ku dhahay adiga hooyo fiican ma tiid hooyo fiican u baahanahay. Iyadana ma iska waalinay midaan cabtooyda ii balamisay. Marka adiga hadda waxaad igu caawisaa sidii hooyadii dib ugu heli lahaay. Midii cabtooyda intay soo kacday waxay ku dhehaysaa sidii aniga cabtooy ii dhihi kartaa. Waxay bilaabaysaa inay iska bixiso timihii madaxa ugu jiray iyo wixii wajiga ugu dhadhaganay. Iyadana iyadoo yaabanay waxay ogaanaysaa qofkii asbuuca la joogay inay hooyadeed ahayd. Hooyada gabadheeda waxay u sheegaysaa markii aad igu dhahday hooyo fiican u baahanahay aniga saaxiibadaya qorshe ii keentay. Waxay tusinayaan muuqaal ku saabsan markii hooyada qaabkeeda la bedelayay. Waqti dheer oo ay sheekaysanayeen hooyada waxay dhahay cunta noo soo karina. Laakiin gabadheeda waxay dhahaysaa ma yaha karin ay sug aniga markaan diyaarinayo. Ugu dambeyn hooyadu way ku farxaysaa inay gabadheedu isbedeshay muuqaalkan intaas ka eega dalka soo gaartay leegnosa.